Hello, this is Mr. Aaron, expat living Yogyakarta, Indonesia. This is my life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan rabaa maanta halkan waa ninkii Aaron ahaa Soomaali Aaron u deganaa magaalada Milaado Yogyakarta, Indonesia. Waxaan rabaa maanta insha Allah in halkan aan idiga soo gudbiyo video iyo waano labadaba insha Allah. Waxaan rabaa inaan ka sheeko insha Allah sida aan halkan ku imid Indonesia, waxa aan ka qabtay Indonesia iyo nolosha hadda aan ku suganahay waddanka Indonesia insha Allah. Weligaa ma ka fikirtay in aad waddan aad weligaa tegin luqadiisa aqoonin dhaqankiisa aqoon inta tagto aad ka samaysato business iyo meherad aad ku guulaysato weli ma ka fikirtay? hadday jawaabtu tahay maya insha Allah nagala soo xiriir barteena YouTube-ka Ali Family Indonesia aan ku leenahay YouTube, and please subscribe and share and follow us also our Facebook page also. We have a number, we have a video inshallah. waddankan Indonesia waxaan imid adiga muddo 5 sano ilaa 5 sano bar laga hor inshallah. tigid aan soo goostay langsung halkan aan imid waan indhindheeyay inshallah. marka hore waxaan ka bilaabay export dharka baatiga la yiraahdo iyo alaabooyin badan ayaa halkan ka qaadi jiray. waxaana geey jiray waddanka Mareykanka iyo Yurub, halkaasaan ku soo iibi jiray. laakiin inshallah 2016 waxaan u soo wareegay waddanka Indonesia. halkan hadda deganahay markaan halkan waxaan ka bilaabay cuntooyin Hindida inaan gado iyo cuntooyinka Carabta iyo waliba cuntooyinka Soomaalida ay ka mid tahay sambuuskeenii aad taqaaneen, canjeeradii lagu quraacanay suqaarkii iyo luqmadii qofka sida u yaqaan insha Allah oodka wax walba oo ah cuntooyinka Soomaalida ayaa lagu gadnaa iyo cuntooyinka Hindida iyo Carabta insha Allah. alxamdulillah anigii waxaan bilaabnay xaaskayga oo ah Indonesiaanka oo laba ciyaal ay dhashay insha Allah. waana ku najaxnay insha Allah. adiga waxaan sameynaa insha Allah maalintii insha Allah waxaan gadnaa ilaa 200 300 oo insha Allah cunto ah. mararka aan adna xafladaha qaarkoodna waxaan ibinaa ilaa 500 ilaa 1000 saxan maalintii alxamdulillah. marka insha Allah waxa weeye wax walba wuxuu u baahan yahay adkaysi iyo dhabar adeeg iyo inaad strong aad sameyn karayso. waddankan Indonesia alxamdulillah waddan 99% muslim ah. waa waddan dadku aad nabadgelyada iyo ammaanka u jecel yihiin. marka alxamdulillah insha Allah taana insha Allah wayna caawisay maadaama aan nahay oran dad muslima insha Allah taana wayna caawisay. marka insha Allah waana ku naxjay waxaana ka taajirnay alxamdulillah. marka halkan aan deganahay ilaa muddo 6 sano ku dhawaada. laba ciyaal ay ugu dhaltay xaaskayga waa Indonesian. marka insha Allah wixii su'aalaad qabto xagga ganacsiga iyo inaad rabto inaad carruurtaada halka keento ay kugu bartaan diinta islaamka iyo inaad ganacsi ka samaysato, waxaad nagala soo xiriiri kartaa numberka aan WhatsApp-ka aan ku leenahay Facebook-ga, ama waxaad noogu reebi kartaa comment-ga down below our YouTube channel Ali Family Indonesia. Please subscribe and share your friend insha Allah. nana dhiirigelis insha Allah video badan oo xag walba oo ganacsiga Indonesia insha Allah isoo gudbi doona insha Allah. waxa weeye wax walba Ilaahay la tala saarta waana la socdaa adduunka lama cabsado meel walba qofku meeshuu tagi lahaa iyo meesha waxaan Ilaahay u qor. laakiin haddii meel kugu adkaato nolosha waa laga tagaa. alxamdulillah aniga waxaan ka mid Mareykan alxamdulillah nolosha way iska wanaagsan, laakiin cibaadadu aad iyo aad bay noogu nimid. alxamdulillah hadda 5 waqti masaajidaan ku dukanaa ما شاء الله الحمد لله. عيالكي قبل عند ليه هذا استجر القرآن كده ويدا ميسي هذا وحي ودا حفظات القرآن إن شاء الله الحمد لله. مركا نولشوا معها ميغا لعجا بنك وجت وحوي نولشوا إنا عبادة ستو إرساقات إلهي واقري مال والبأكل مال والبنويت الله دي أتقف أدق أو سمارت أو سترونج أتها إن شاء الله. مركا نلسوا حرير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.